noqonin raqiis maahid qaali baa tahay ilaahay baa qaali kaa yeelay waxaad runtii ku dhex jirtaa min dimn dadka ilaahay uu qaaliga ka dhigay ilaahay uu karaameeyey waxaad ogsoon tihiin in insaanka oo dhan ilaahay uu karaameeyey walaqad karamnaa bani aadama ayuu leeyahay alla subxaanah waxaanu karaamaynay ilmihii aadam oo idil waanu karaamaynay laakiin waxaan rabaa maxaa lagu karaameeyey karaamadan ma iska leeyihiin ma iyagaa asal ahaan u leh oo insaanka ma sidiisuu u karaamaysan yahay mise wax ilaahay uu ku karaameeyey baa jira waa jiraan amaakin ilaahay uu karaameeyey waktiyo ilaahay uu karaameeyey laakiin insaanka bimujarad inuu insaan yahay ilaahay kuma oona karaameeyey hadalkaasna runtii aada u dhegaysta insaanka waa waxa lagu karaameeyey allah inoo sheega waxa lagu karaameeyey rasuulka wuxuu yidhi alle walaqad dara'naa lijahannama kahiira min aljinni waalinsi insiga saw ilmihii aadam maaha waxaanu u darabnay u abuurnay jahannama in badan ayaanu u abuurnay oo ilmihii aadam ah oo jinni iyo insi ah in badan oo jinni iyo insi ah oo kuwa jahannama loo abuuray ee insiga iyo jinniga ah soo kuwii la karaameeyey maaha markay karaamadii garan waayeen iyo wixii lagu karaameeyey ayaa masiirkoodii halkaa noqday kuwii kalena way ka badbaadeen intuu noqday masiirkoodii jannat lfirdows walaqad dara'naa lijahannama kahiira min aljinni waalinsi wuxuu inoo sheegayaa weliba alle 3 shay oo kamid ah boqolaalka shay ama kumanaanka shay ee ilaahay insaanka uu ku karaameeyey 3 ka mid ah 3dii markii ay runtii ku karaameysmi waayeen garan waayeen xaqii wixii lagu karaameeyey waxay ka liiteen xoolaha kuwan aan karaameynay lahum waxay leeyihiin oo aanu ku karaameynay quluubun qalbiyaalo caqli qalbi baa ilaahay waa qalbigiina waxaad garanaysaan inuu yahay shayga ugu qaalisan xubnaha ilaahay ina siiyey ideelkood maxaa yeelay waa meeshuu ilaahay isha ku hayo in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaal ilaahay jirkiina eegi maayo gabadhiina cad buuran jalaqsan ma eegayo ilaahay gabadha xooggeedii xoolaheedii waktigeedii jirkeedii iyo dharkeeda gelisay quruxdeeda gelisay ilaahay eegi maayo ilaahay waxaan qiimi lama leh marka xoolo ku lumaysa intaas maaha inta lagu abuuray inta ilaahay kugu karaameeyey sharafka uu kugu yeelay qaaliga aad ku tahay ma aha maadiga ma aha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum idinka iyo xoolaha waxaad kasabtaan waxaad soo gadaan xoogii xoolaha jirka ma aha wuxuu ilaahay eegayo aboor baa iskale waxaas waad ka tegaysaa dad baa iskale walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum halka la ilaaway waa acmaasha iyo qalbiga waa qalbigan sanduuqan qaaliga ah iyo waxa gelaya shar iyo khayr laakiin way garan waayeen qiimigii loo yeelay ilaahay wuxuu leeyahay way ka faa'iidaysan waayeen qaalinimadeeda gabdhihii way garan waayeen waxay noqdeen rakhiis laa yafqahuuna biha qalbiyaalihii qaaliga ay ku noqon lahaayeen maanta kuma noqonayaan maxaa yeelay qalbiga marka wax lagu fahmo qaali qofka ka dhigaya haddaan wax lagu fahmina waa kana laa yafqahuuna biha caqligii iyo qalbiyaalkii waxba ku garan waxba ku fahmi mayaan waxba ku tadabburi mayaan way isticmaali waayeen qalbiyadoodii maxaan kaloo ku qiimaynay walahum acyunun 2 indhoo qurux badan oo la rabay maxaa inay wax ku arkaan laakiin rakiisay iska dhigeen gabdhihii laa yubsiruuna biha indhihii la rabay inay qaali ku noqdaan ilaahay ku qalabay wallahi xabad ka mid ah adduunka iyo waxa saaran wallahi way ka qaalisan tahay waad garanaysaan idinkuba
laa yubsiruuna bi laakiin xaqii ku arki mayaan, wanaagii ku arki mayaan, wixii faa'iido u ahaa adduunya aakhira ku badbaadi lahayen ku arki mayaan. waxaan kaloo ku qalabaynay oo ay ka faa'iidaysan waayeen walahum aadaanun dhego laa yasmacuuna biha, nasiib daro waxba kuma maqlayaan. waxaanu ku qaaliyeynay, way garan waayeen, rakhiis ayay waxay ku noqdeen in shaygii qaaliga ahaa ay ka faa'iidaysan waayaan oo dhegaha ahaa oo ay xaqii ku maqli waayaan, wanaagii ku qaadan waayaan. haddii saddexdaas shay iskaba dhaaf kumanaanka kale oo aynu garan la'nahay ilaahay inugu karimayeen, saddexdii shay oo aan garan weynay ayaa ilaahay markaanu qaali intuu nooga dhigay aan garan weynay waxaanu ku noqonnay kuwa dadka ugu xun, karaamo iska dhaafi daliiliin. ulaa'ika kal ancaam ayaa la yidhi, waaba xoolo. awi karaamadii wixii lagugu karaameeye adaa qaadan waaye, xoolaad noqotay marka. waa xoolaha lo-da iyo geela iyo ariga. waxa ayaan daro ah maanta gabadhii saddexdaas intuu ilaahay sii ka faa'iidaysan weyday oo xaqii ku aadi weyday, wax ku baran weyday. ilaa waxaan waa wax inaad ku baratid. eeg, indhihii waxaad ku arkaysaa wixii, dhegihii waxaad ku maqlay xaqii, qur-aankii, sunnadii, wixii fiqigii, wixii faa'iido ku ahaa. qalbigana waa wixii weylaynayay, waa faa'iidadii aad soo urursanaysay iyo weelkii aad ku shuban lahayd si aad hadhow ugu badbaadid. sacaad tahay xaqiiqatanna markaad saddexdaa ka faa'iidaysan weydid, wallaahi baan ku dhaartay sacaa kaa qiimi badan. ulaa'ika kal ancaam bal hum adal. geela, lo-da, ariga, xoolaha wayba xaggiiba kasii jira, sababtoo kuwan lama saarin inta aad leedahay oo xaq aad takaalif lama saarin. wixii loo abuuray waa laga helay, hadafkii waa laga helay, waa laga faa'iidaystaa. kuwan adiga maxaa lagaa faa'iidayaa? ulaa'ika kan bal hum adal ulaa'ika hum alghaafiluun ayaa la yidhi. khalaas, waaba moog yihiin, hadafkii loo abuuray moog yihiin, karaamadii moog yihiin, haalinimadii waaba moog yihiin, waxaan saaran ee xubno ah qiimigooda waa moog yihiin. bal waxay moog yihiin ilaahay waxaanoo dhan siiyey moog yihiin. kuwan xaggee dadka noocaas oo kale ah oo moog maxay xaggee aakhiro waxay kaloo moog yihiin masiirkooda ha ku noqon doono. walaalayaal, haddaan dumarka usoo leexdo, ilaahay si gooniyo haddana idinsii karaameeyey. ha iska dhigan raqiisiyey. markaasaa kuwii la aasayey ayuu ka bilaabay qiimiga iyo qadarka iyo mansiladooda inuu soo saaro. waa ku dhahayo man ibtuliya min haadihi albanaati bishayin, lafdan wuxuu leeyahay fasabara calayhina kuna lahu sitran min annaar. allah, waxaad garanaysaan wixii haddaan soo sheegnay insaanka uu ku baaba'ay ee jahannamo ahaa, oo aakhiro marka la taga laba meelun baa jirtaa, fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir. ayaa gabdhihii la aasayey vayruska ahaa la necbaa, dadku garan lahaayeen xaqooda, ayaa maalin qura intuu dul istaagay diintan qiimigeeda siday idin qiimaysay. fiiri, uu leeyahay qofku ilaahay ku irsaaqo, haweenka kaga irsaaqo shay, qofku ilaahay ku ibtileeyo shay, ku imtixaamo shay, ku ugu necmeeyo shay, ugu irsaaqo shay dumar kamid ah, yani hal ilaa iyo wixii ka sarreeya. fasabara calayhina, oo u sabra. u sabraa waa maxay? axaadiista kalea sheegaysa u sabraa yacni quudiya, oo dhar u xira, oo cabitaan siiya. qaar waxay leeyihin oo edbiya, oo u naxariista uurkooda farxad gel, yacni mu'unadii badaniga ahayd oo dhar xirashadii, cuno saaridii, cuno siintii, cabitaankii, jiifkii, wixii oo dhan siiya. xaggii ruuxiga ahna ilaa irsaaqda waa dadku waa laba, waa jirkaas badanka iyo ruuxdiina waxbarashadii, akhlaaqdii, maaragtay u naxariisashadii geliya, labadiiba isugu daro ruuxdii iyo jirkii. fasabara calayhina kuna lahu sitran min annaar. ilaahay ku irsaaqay hal gabar, hooyadii ilaahay ku irsaaqay hal gabar iyo wax ka badan oo dadaalkaana soo samaysay. maalinka qiyaama markay imaado, dadaalka waxay u soo samaysay oo dumara gabadhii yareeda ee intaa u soo samaysay maxay ugu bedelaysaa? abaabku muxuu noqonayaa
inay cadaabka ka difaacdo. haddii cadaabka laga difaaco waa xaggee? waa jannadii. lafdi kalena jannadii bayba geynaysaa, saan idin sheegi doono. laakiin aan isweydiine, gabdhuhu hooyo walboo gabar dhashaa ma jannay hore ka gelaysaa? waa maya. waan idiin sheegay ashyaada sidooda qaali uma aha, sidooda uma karaamaysna. gabdhahan yaryar saad lafdigaba ku arkaysaan waxa ay ku karaamaysan yihiin, ciddii weelaysaana ay ku karaamaynayaan, qiimi ku yeelanayaan. waa waxa adigu aada geshatid. inaad wax gelisid baa lagaa rabaa. waladiina jahaduu fiina lanahdiyanahum. ciyaar baa ilaah iskama kahanuna, wax iskama kaasiina. qofka waa inuu dadaala, juhdi waa inuu bixiyaa. man ibtuliya min hadihi lbanaati bishayin fasabara calayhina. tan waay inaad u sabirtid, juhdi gelisid. jirkeeda wuxuu u baahan yahay, nolosheeda muuqaalkeeda wuxuu u baahan yahay, jiritaankeeda, ruuxdeeda aakhiro waxay u baahanta oo dhan inaad adiga gelisid. waxa aad gelisid taas waayo waxa qaaliga gabadhun ay ku noqonayso oo ay aakhiro kaaga xijaabayso. halkaa adiguna aad qiimi ugu yeelanaysid, maca alxabiib jannada aad ku gelaysid. waa waxa adigu aad gelisid. imisaa gabdhooda inoo jooga ilaa baad ku daariye, guri walba imisaa joogto. juhdigaas haddaan gelino waxa guryaha inoo jooga waa wixii ina badbaadin lahaa aakhiro, waa wixii aakhiro inaga badbaadin lahaa cadaabkaa toddobada inaga badbaadin lahaa. mar kale wuxuu leeyahay weliba eeg gabadhan xadiiska uu ku soo arooray caaisha ay sheegayso, man ibtuliya min hadihi lbanaati bishayin kuna lahu sitran min annaar. way u timid, hooya u timid, laba gabdhood wadata. way u timid, way aragtay caaisha eeg waxay geshanaysa, hooyaduna ilmaheeda waxay geshanaysa. caaisha radi allahu canha, umuna caaisha allaha u naxariistee ka raali noqdee, waxa waaye sadaqadeedii, qalbi wanaageedii, wixii ay bixiso badligeedii ayuu ilaahay ka abaalinayaa. cilmina waa ina baraysaa, waxay haddana inoo sheegtay ay qabatay ajri kasii heleen. hooyadana eeg waxay tiri, way timid, gurigaan wax ka raadiyey, waan ka waayey, wixii yaraa ee aan guriga ka helay baan siiyey, waa xaba timir ah. hooyadii baan idhi ilaahay ha kuu barakeeyo. hooyadan eeg marka waa laba gabdhood, waa kuwii hadda la dhahayay haddii ilaahay idinkugu nimceeyo shay dumarkan ah fasabara calayhina. hooyadii maxay samaysay? way u sabirtay. wixii iyada ay u baahnayd, ay u gaajoonaysay, ay rabtay inay afka gashato luqmadaa cayshka ah, way ka sabirtay. waxay ugu sabirtay ilmaheedii, way u kala goysay, labadii bay kala siisay. caaisha radi allahu canha aad bay ula yaabtay, sidii bay ku baxay. hooyadaas maxay gelisay? gabdhihii ay dhashay eeg waxay gelisay, waxbay gashatay, juhdi bay gashatay, naxariis ayay gashatay. man caala jaariyatayni, laba gabdhood keliya qofkii wax gashta, qofkii wax gashta oo gashtaa maadii tii kalaba gashtaa, jir ahaan iyo ruux ahaan, xataa tabluga, ilaa ay ka qaangaaraan. jaa yawma alqiyaama, maalinka qiyaamaha wuxuu qofkaas imanayaa, hooyada ama aabbaha, gabadhaa waxay imanaysaa aniga oo Muxamed ah sala allahu calayhi wasalam, iyo iyadii ama isagii oo isku lamaan, macnaha jannada galina. haddaba maxaa la dhahay? kuna lahu sitran min annaar, cadaabkii kaa celisay. fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir, saciiray kaa celisay, jannadiina waa tanaa. markay saciira kaa celisay, anigii iyo isaga weliba keligeed ma gelayso hooyada iyada ah, bal anigii iyo iyada anagoo lamaan ayaan wada gelaynaa. soo garanaysaan qofka ugu horeeyo jannada galay inuu rasuulkeena yahay sal alay slam. markuu gelayo xadiis baha, markuu gelayo lugta midig intuu furo uu geliyo sal allahu alayh wasalam, waxaa isku soo riixaya waa qof dumar ah. maxaad ahayd gabar yahay? maxaad ahayd ood intaanoo dhan uga soo hormartay khalaa'iqda? hooyo waxaan ahaa u fariisatay ilmi yar yar, ciyaal yar yar, aabbahood uu dhintay, u fariisatay, u daysay raaxadeedii ilaa ay ka qaangaaraan, u daysay nolosheedii ilaa ay hani ka noqdaan, istiqnaa ilaa ay ka deeqtoomaan. ayaan u fadhiyey, dadaalkaas ayaan adduunkii sameeyey, waxbaan gashtay, ilmo yaroo agoomahan wax gashtay, rasiib gashtay. ayay la gelaysaa, keligeed ma gelaysa. qiimiga eeg, inaad jannada gashada, inaad xabiib kala gashado waa kala darajo. sala allahu calayhi wasalam.
laakiin hooyadaa gabadha ilaahay gabdhaha ku irsaaqay ama ubadka ama ninkeedii dhintay ama la furay laakiin ilmihii u fadhiisatay hee oo aanan dayicin ilaahay ha hagaajiye masiirkeena.